mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah ee UCID ee gobolka Togdheer oo habeenkii xalay warbaahinta kula hadlay xafiiskooda magaalada Burco ayaa taageero u muujiyay safarka madaxweynaha Soomaaliland ku tagay dalka Guinea. Sidoo kalena waxay soo bandhigeen musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee gobolka Togdheer uga sharaxan Soomaaliland, waxaana madaxweynaha Soomaaliland ka codsadeen inuu soo dedejiyo waqtiga la qabanayo doorashooyinka dalka. ugu horeyntiiba halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ee gobolka Togdheer Fuad Maxamed Furre oo taageero u muujiyay safarka madaxweynaha Soomaaliland kana warbixiyay sida loogu baahan yahay inay dhacaan doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee dalka la doonayay inay ka qabsoomaan. in doorashadii halkan waxa fadhiya xildhibaanadii baarlamaanka iyo kuwii golaha deegaanka oo doonaya in doorashadii loo qabto annaga 24 saac gobol ahaan xildhibaanadu waa Muraad Dilaac Muuse waxaan u maleynayaa xukuumadda Muuse xildhibaanada weeraraya cid kale waa weeraraysaa ma jirtay xildhibaanada doorashada doonaya ee ay dhibtay xildhibaanadii hore la doonayana isbedel inay sameeyaan marka waxaan wadan gobol ahaan nahay aanu ku cod dheer ugu baaqaynaa xukuumadda Muuse Bixi inay doorashadii qabato oo tanaasul samayso kelmad baan oranayna anagu xisbiga cadaaladda iyo daryeelkan xukuumadda waxaan ku taageernaa waxa wanaagsan safarkii maalintii dhaweeyay si fiican baan ugu taageernaa madaxweyne hambal iyo maamulaan shacbiga Soomaaliland guul weyn baalka inagu soo hoytay. ayaguna dhankooda waxaa halkaas ka hadlay musharaxiinta u taagan golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland ee gobolka Togdheer waxaana kamid ahaa hadal waxaanu leenahay horta waxa halkan la soo taagay caawa inaanu ka hadalno doorashadii waa aragnaayo sharcigii waddanku baa fadhid yahay meel allaaliyo meel ka soconayo qarankani ma jirto waxaanu leenahay madaxweynaha qaranka haddii aad doonayso in sharciyada aad shaqayso waa in golayaashu shaqeeyaan oo golayaal sax ah oo la soo doortay ay noqdaan xisbigan tanaasul aad u badan buu sameeyay gudoomiye Faysal waana ugu hambalyeynaa kii uu sameyn lahaa madaxweynuhu isaga sameeyay hadeerna waxaan uga fadhinaa inuu madaxweynuhu isagu inoo sameeyo tanaasul waxaanu ku leenahay madaxweyne 15 sano waad maxaa loo yiri xilku waa wareegto 15 sano ayay fadhiyeen maanta nimanka fadhiya baarlamaanka waxaanu doonaynaa in loo soo dedejiyo doorashooyinka hablo iyo inamo musharaxiya ayaa jooga oo sugaya inay hawlahooda dhex galaan oo ay waxaan ku riday hawlahooda galaan marka waxaanu leenahay madaxweynaha iyaga tanaasulaad samee adaanu ku sugaynaa adaa meesha ka madaxweyne adiga xilku ku saaran yahay madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa inaad soo dedejiso doorashooyinka dawladda uu hogaaminay Musabi waqtiyada kamida kulmay wuxuu ku eedeynay xilliyada doorashada ma ogolay doorashada dhacdo xukun buu ku haystaa xukun military laakiin maanta waxa muuqata kulmiyaha imika Musabi in amar uu ka soconaya aniga hal lay maqlay kaliya laakiin cid kale oo la dhageysanaya ma jirto ugu dambeyntiina halkaas waxaa hadalka qaatay xogayaha arrimaha gudaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID iyo xogayaha dawladda iyo hawada ee xisbiga UCID waxaana madaxweynaha Soomaaliland ugu hambalyeeyeen safarka uu ku tagay wadanka Guinea sidoo kalena waxay madaxweynaha Soomaaliland ka codsadeen inuu soo dedejiyo doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee la filayo inay Soomaaliland ka dhacaan tabayaaqada sanadda 2019 war dalkiisa nin u baqi waayay oo u turi waayay raganimada uu leeyahay waa ma garanayaan dadka halkan fadhiya waa dadkii musharaxiinta ahaa ee doonayay kuwa 16 sano fadhiya inay meesha uga kacaan ee doonayay inay hogaamin cusub iyo dhiig cusub la yimaadaan ee doonayay dalkeenani inuu horumaro ma fadhiyayaan mana noqonayso qaar inay iska fadhiyaan oo 82 qof oo waligood joogta ay dadkoo dhan matalaan madaxweyne khayr Allah ku siiyo annaga wax walba wanaaga kugu garab taagan dadkaana meesha ka kaxay dalkana doorasho u qabo halkan waxaanu shirkan jaraa'id uu daaran yahay in ay dareenkooda muujiyaan xildhibaanada u diyaarka ah inay galaan golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka maanta ragga talada dalka haya waa raggii markii dastuurka dalka la sameeyay lahaa shaar leeg buu tolanayaa cigaal waa raggii lahaa maanta iyaga taladii dalka gacanta ku haya markay ku qabteena waxa la macaanaaday
in tii uu cigaal noo sameeyey inay burburiyaan bay maantana diyaar u yihiin yeelina mayno madaxweynaha tegey waan hambalyeynayna madaxweyne waa shaqooyinkii lagaaga baahnaa inaad qabato ee inaad dayacday aanu u haysano iyo weliba jaanisyo badan oo kala lumisay waxaanu ognahay intaasoo casumadood oo aad diiday tii kuwait baanu ognahay tii sacuudi arabiya aanu ognahay oo maanta xoolaheenu u fadhiyaan in aad fadhiga ka kacdood ummadan ballankaad u qaaday u qaado waan kugu hambalyeyn waa cabdiqani cabdulaahi maxamuud cabdiqani baafo wararka telefishinka royal magaalada burco